iyadoo saacad waliba la sugayo in lagu dhawaaqo golaha wasiirada kaasoo qabaqaabadiisa ka socota xafiiska ra-iisul wasaare xasan cali kheyre. ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa haatan ku jira wadatashyadii ugu dambeysay oo ku magacaabi lahaa golaha wasiirada waxaana la saadaalinaya in lagu dhawaaqi doono maalinimada arbacada ee fooda nagu soo hayso. qaar ka tirsan golaha wasiirada ee beelaha kasoo jeedaan ayaa helnay waxaana ay kasoo kala jeedaan maxamed mukhtaar gaaljecel, cabdiqaadir cosoble, abgal harti ab warsegeli, dr sheekh maxamed xawaale, maxamed culusow habagidar ceer. sidoo kale beesha daarood ayaa waxaa u matali doona golaha wasiirada cali xaaji warsame majarteen, cumar maxamuud reer mahad, cabdiqaadir xaaji maxamuud dhaqane, ogaadeen cawlmala, jaamac caydiid dhulbahante, zakariya maxamuud xaaji lelkase. sidoo kale beesha dir ayaa kasoo muuqan doona golaha wasiirada waxaana u matali doona ridwaan xirsi maxamed isaaq habar yunis, cabdi ismaaciil samatar gudubirsi iyo weliba cabdulaahi cabdi carab dir surre iyo axmed gaboobe ugaas bille dir gaadsan. sidoo kale beesha digli mirifle ayaa waxaa u matali doona golaha wasiirada waxaana la sheegaya inay ku yeelan doonaan 4 xubnood. sidoo kale waxay kala yihiin cali siciid fiqi digil tunni, cabdixakiin xaaji fiqi digil dabare, cabdifataax geesi mirifle laysan, aadan maxamed nuur mirifle hadame. sidoo kale beesha shanaad ayaa waxaa yeelan doonaan 2 wasiirood oo kale ah faad yaasiin xaaji daahir reer aw xasan reer mahad, sidoo kale siciid xuseen carab. sidoo kale liiskan golaha wasiirada ayaa mar walba isbedeli kara inkastoona la saadaalinayo inay kasoo muuqdaan dhammaantooda inkastoo ay socdaan wadatashyadii ugu dambeysay lagu dhawaaqi lahaa golaha wasiirada. wixii kusoo kordha wararkeena dambe ayaad kala socon doontaan.